بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنوا ونكسن داود عيال دكتور عبد العزيز داهر سعيد أو كم دا دكاترة السماء الآن أيها الشعراء إن أن بل ورئيس عن كقاضو قصة عبسن لو أنت أي أحد مركي جدي ده هيدا دورس التخيل قرن أي صارين وربحين عم باو وراه أبا وريفت أي كوتشينيين أمدي بيقصوا ريد داوين لك بعبوري waxaa xusid mudan shirkadda la yiraahdo MH Pharma UK oo ah shirkad caan ah oo dhinaca dawooyinka soo saartay waliba dawooyinka tayaraha waddanka Ingiriiska in dawooyinkeedii la macmalay ama laga been abuuray oo ay dib u soo urursay hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba khatarta dawooyinka noocaas ama kuwa dhacay ama kuwa laga been abuurtay ay leedahay ay bulshada ku keenayso waxaan jecelahay inuu inoo sharxo دكتور عبد العزيز داهر سعيد دكتور كسو دhowow bal waxaad la sharaxdaa khatarta caafimaad ee ay bulshada u leedahay dawooyinkan dhacay inta badan wadankeena ay ku soo noqdo waayo wadankeena xanuun Itoobiya India waxa weeyaan xitaa cuntooyin dhacayna dhowr jeer wala soo bandhigay bal khatarta inta leeg iyo waxa loo baahan yahay horta khatarta ay jecelahay dadweynaha aad marka koobaad aad u sharaxday بسم الله الرحمن الرحيم وندوهي ولا صحافي علي محمد runtii aad iyo aad baan u dhahay waa ku salaamaya walaal adiga iyo TV-ga waan salaamaya sidaad sheegtay walaal waxa weeyaan dhawaan bay ahayd markii ay soo saartay hay'adda dhawrista tayada qaranku ay wareegto ku soo saartay lagu hakinayo ama dib loogu soo ururinayo dawooyin aan haboonayn oo aan buuxinin tayadii loo baahnaa ee medicine ahaan iyo inay isticmaalaan shakhsi loo isticmaalo taasoo markaa keentay in laga been abuuray oo ay timid hab been abuura lagu soo geliyay wadanka isla markaana waxa weeyaan ay u gudubtay markaa xarumihii dadka lagu siin lahaa sidaad ku arkaysa wareegtada ay soo saartay hay'addu ay soo saartay runtii imako quraata ma habaan u maleynaya caliyow hore ayay u dhacday hay'addu inay dhowr jeer hore ay nala wadaagtay inay saas oo kale cuntooyin dhacay oo quality-goodu aan wanaagsanayn wadanka si qalada ku soo galay in la qabtay marka koobaad horta hay'adda waa ku bogaadinaynaa hawsha qaran ay gudatay mar labaadkana waxa weeyaan saddex shay baynu maanta u kala qaadaynaayo haddii Allah uu daliilmo mid waxaynu oranaynaa aynu sheegaynaa bal dhibta ay ku keeni karto daawada noocan oo kale ah ay ku keeni karto shakhsi ahaan bulsho ahaan iyo qaran ahaanba maxay nagu keeni karaysaa sida aad la socoto caafimaadku waxa weeye waa sunneeg waana hab jamaaci wax looga wada shaqeeyo macnaha marka saa u hadlayo waxa weeye caafimaadku ma aha wax kaliya ta aniga ay khuseeya ilaalintiisu wax maxaa la yiraahdaa cali khuseeya iyo qof kale khuseeya maaha waa in hab jamaaci dhamaantii horta looga wada shaqeeya waa in la fahamsan yahay dhibta ku dhacaysa inay noqonayso dhib ku wada dhacaysa dhamaanteed inagu wada dhacaysa wixii ku yimaada mustaqbalka dhibtu inagu keeni karayo daawooyinka sida aad ku arkaysaan halkan ay hay'addu xanibtay waxa lagaga been abuurtay sida arkayso waxa weeye waa company weyn oo la sheegay inuu ku yaalo UK company-gaasi waxa weeyaan waa company markii sida inoo sheegtay hay'addu ay dib u baareen aan jirin waxaana weeyaan dhibaatada noocaas oo kale caliyow waxa weeyaan waa dhibaatooyinka ugu waaweyn iyo mushkiladaha ugu waaweyn ee qarankeena iyo ummadeena de ninka ganacsadaha ama shakhsiga ganacsadaha ee waxa noocaas drugska noocaas soo gelinaya wadankiisu runtii waxa weeyaan dambi ahaan marka la eegayo de wuxuu la mid noqonayaa qofka qoriga sita yani waa cadawga labaad ee qoriga sita la dhacaya iyo qofka soo gelinaya dawo dhacday qof siinaya ama wadankiisa ku fiir gareynaya u soo dejinaya runtii waxay ku kala duwan yihiin ma jirayso saddex shay bay u saameynaysaa talada xagga dambe aynu ka dhigan doonaa laakiin shakhsiyan saameyn intee leeg bay noqonaysaa daawadu waxa weeyaan jirkeena bini'aadamka ilaahay siduu u abuuray wuxuu ilaahay u abuuray in uu maxaa la yiraahdaa caafimaad ilaahay ku abuuray in haddana xanuun ku dhici karo inuu jirku iska difaaci karo xanuunka intii aanu iska difaaci karin jirkeennuna
in waxa weeyaan aynu loo sameeyey in markaa daawooyin lagula tacaalo daawooyinka lagula tacaalayo jirkeenu si buu uga falceliyaa si uu markaa bogsad uu markaa jirku u dareemo caliyow daawooyinka noocan oo kale aan buuxinin shuruudihii waxyaabaha ku jira ama chemicalska ay ka samaysan tahay daawadani iyo ingredientska ay ka samaysan tahay shuruudiha aan buuxinin waxa weeyaan jirka qofka bini'aadanka waxay ku keenayaan xaalad maxaa la yiraahdaa khatara taasoo markaa mid dhow iyo mid mustaqbalkaaba yeelan karaysa tusaale ahaan oo kale daawooyinka halkan bulshada ay la wadaageen hay'addu aynu arkayno lagaga been abuurtay waxaa ku jira daawooyin fara badan oo qaarkood ay yihiin broad spectrum daawooyin yani inta badan loo isticmaalo different xanuuno badan oo infectious diseases waxaa ku jira qaar ah relief oo loo isticmaalo pain anti pain oo kale sidaad ku arkayso wadiga amoxicillin capsule baa ku qoran sidaad arkayso waxaa ku jira paracetamol baa ku jirta waxaa ku jira atenolol caliyo oo runtii ayaguna daawooyinka loo isticmaalo lagula tacaalo xanuunka dhiigkarka lagula isticmaalo waxaa kaloo halkan ku jira sidaad arki doonto xanuuno daawooyin loo isticmaalo in lagula tacaalo iyaga laftooduna maxaa la yidhahdaa xanuunada dhimirka marka waxaad garan karaysaa dhibta ummaddeena ay gaadhsiin karayso ka shakhsi ahaan iyo ka bulsho ahaanba mar labaadka waxay gaadhsiin karaysaa ummaddeena inay markaa ay ku keento in mustaqbalka qofkii daawo ahaan haddii la is yiraahdo daawo noocan oo kale qofkii xanuunkii noocan uu hayay haddii la siiyo runtii inuu mustaqbalka jirkiisu ama uu ka jawaabi kari waayo uu ku dawoobi kari waayo dawadii saxda ahayd ee la siin kari lahaa doctor haddaan ka dhex gala halkaa ma la odhan karaa inta badan waxa weeye dadkeenu xanuunadu way ku badan yihiin Ethiopia la geeyaa India la geeyaa dad badan wayba u dhinteen dhimashada badan oo xitaa garanaysa ka jirta Soomaaliland ama raashin dhacay ha noqoto ama dawo loo qariyo oo dhacay ha noqoto waxyaabahaas qayb weyn ka ama la oran karaa definitely aliyo waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan waxaan doonayaa jaaniskan maanta inaan uga faa'iideysto dibayow maanta waddankeena iyadoo adduunyadaba ku badan yahay haddana waddankeena maanta ummadda Soomaaliyeed baxitaan isku daree oo inuu qayb ka nahay dadka Soomaalida ee dhaqan waxa weeyaan waxa ku badan xanuunada inta badan kansarka xanuunka kansarka farabaas buu inagu hayaa sida aad sheegtay waxa lagu la tacaalaa waddankeena dibadiisa lagu la tacaalaa dadka wixii dhaqaale awoodi kara Ethiopia ugu sokayso iyo wixii ka sii shisheeya wixii soo nabad noqdaana inta badan waxaan badbaadin iyo wax Ilaahay ku badbaadiyaba way noqdaan laakiin waa dhibaato taagan wali waxaan la isweydiinin caliyo marka hawsha noocan ay timaado ama yani ay timaado waxyaabaha ugu horeeya la qaado waxa weeyaan institutiono dhisan oo maanta anigu aan tabayo because professional ahaan markaan anigu ka hadlayo anigu public health baan ahay ilaa iyo master degree-gayga waxyaabaha aan tabayo aan arkaya ee baahida weyn loo qabo waxa kamid ah inay research la'aan inagu jirto waayo buxuuth iyo marka wax la baaro ayaa wax lagu ogaadaa waxan maxaa sababay xanuunada imika aad sheegayso kala ahaato ma waxa sababaya ayay noqonaysaa su'aashaad isweydiinaysaa ma daawo dhacday baa sababaysa ma waxa sababtay raashin dhacay baa sababay ma deegaanka laftiisii oo environmental causation sababay ma waxa sababaya wax kale oo factor oo kale oo meesha jira baa sababay waxay u baahan tahay in la sameeyo deep fundamental research ama يعني absolutely taana waxa sameyn karaya waxa waa in hab dawliya oo dhaqaale badan oo xaj badan uu ku baxo way jirtaa runtii afwan hadii aan anigu intaan wax akhriyay intaan arkay de shakhsiyaad qoray oo buxus isku day way jiraan laakiin shakhsi iyo laba inuu ka bixi karayo ma waxa waa fundamental research bay u baahan tahay qayb bay ka tahay dawooyinku wali waa meelaha ugu daran carcinogenic diseaseska xanuunadaas yacni cancer positive inkastoo adiabatic uu badan yahay oo laakiin xanuunkaas kow bay ka noqonaysaa daawada iyo quality la'aantaas iyo raashinka quality-giisu leeyahay calow runtii aad bay ka noqonaysaa waxaanan aaminsanahay hay'adda maxaa la yidhahdaa dhowrista qaranku inay halkaa xog badan iyo fiirsi badan ay u yeelan doonto iyadoo markaa la tashan doonto markaa dadkii khibradda iyo ma garanaysaa u lahaa reer Somaliland inay markaa ay balla kaashato waa sidee loo sameyn karaa empirical evidence of research ku saabsan maxaa sababaya xanuunada noocana
ugu dambeyntii rabadaanna waa lagu jiraa dadka ganacsatada ah ama dawaha soo dejiyo ama dee raashinka la quutaha soo dejiyey ka dhaqtar ahaan maxay tahay fariinta halka aad u marinaysa بسم الله الرحمن الرحيم فرينتا إذا هل كان ما أنت أروح في هذه السنة يانو مرينا لبا أيانو استعماليا وأمريكا كوباد وحن هرتا همبلية ودرايا سيدان صور شيء هاي دا دورستا runtii anigu waxaan ahay shakhsiyaadka ku farxa marka saas oo kale ummadda way waxaan arkayaa in dhibaato weyn laga qabtay dhibaato weyn oo runtii cali oo sidaa soo sheegay waxaynu arkaynaa marka la yiraahdo cadow qana uu muuqda qana waxaan muuqan runtii hay'adaas waxa ka qabatay cadow aan muuqanin oo ummadda lagu soo daayay waa ku mahadinaya waana ku hambalyeynaya mar labaadka waxaan uga faa'iideysanayaa reer Somaliland waa inay la shaqeeyaan oo ay hay'adaas iyo maxaa la yiraahdaa sidii dawadaas imanka la dhacday la soo ururinayo in qaybihii maxaa la yiraahdaa ogta la siiyay iyo qaybihii maxaa la yiraahdaa la farayba inay soo ururiyo haday dawlad hoose noqoto haday noqoto pharmacists-kii iyo dadkii maxaa hospitalists-kii haday noqoto health provider-ka laftiisa oo dhaqaatiirta ay ku jirto prescription ee dawada qoraya hadii ay noqoto maxaa la wasaaradda caafimaadka dhamaantood in gacan la siiyo 30 cishay oo qabteen in dawadaas dib loogu soo celiyo laga soo ururiyo kulay waxaan soo jeedin lahaa in lagaba soo gaabiyo muddada inta waayo waxa weeyaan khatarteeda ay leedahay plus bay noqonaysaa waxa noqonaysaa qof de waxa weeyaan dawo saxa lagu muday waxaan aan marka jirkiisii baa u geysanaysaaba dib kale u geysanaysaa dawada mar dhow la siinaya resist ku noqonaysaa marka taalifteeda waan uga faa'iideysanayaa waxa kale waan uga faa'iideysanayaa in laynu mar walba aynan ku halaynin in hay'adaas qoratay dhamaan muwaadiniinta reer Somaliland hadii ay arkaan waxyaabo xuduudaha inta badan meelaha wadanka wax laga soo geliyo waa xuduudaha inay markaa alert u yeeshaan bal waxyaabo xuduudda ka soo gelaya inay la soo socodsiiyaan hay'adihii khuseeyay hay'adaasi ugu horeyso mar saddexaadka waxaan halkan uga soo jeedinayaa ganacsatada caliyow ganacsatadu wadankeena waa dad wanaagsan oo runtii ganacsato wanaagsan ma leeyahay laakiin midka noocaas oo kale ku soo dhex gabanaya war waxaan idan leeyahay ganacsadaha noocaas oo kala ah waxaad ka ganacsanaysaa waxa weeye waa drugs waa medicine waa waxa qof shakhsiyan ilaahay karaameeyay baa lagu daweynaya marka hadii qof shakhsiyan oo ilaahay karaameeyay lagu daweynayna runtii waxa weeyaan inaad foojignaan u yeelato ummadaada ayaad xasuuqaysaa wixii ummadaada mar dhow ku noqonaya adaan ka badbaadin xitaa ka soo dejinaya laftiisa hadduu maanta emergency u baahdo de isaga lagu daweynaya marka waxa weeyaan adiga laftaadii baan ka badbaadin marka runtii isagana waxaan u soo jeedinayaa ganacsataduna bir rabadaan baa lagu jiraa inay ilaahay ka yaabaan inay wax tayo leh inoo keenaan maanta xanuunadii waxyaabaha ayaa adduunka ku soo badanaya emergency diseaseska xanuunada maxaa la yiraahdaa noocaas oo kale aad bay u soo badanayaan in laga digtoonaado quality la'aanta in laga digtoonaado quality intaasaan ku soo gabagabeynay ganacsade min fadlika ama raashki soo deji ama dawo soo dejiyo utud oo u naxariiso dadkaaga reer Somaliland waxa weeye dawo dhacday raashin dhacay ka ilaali tayadu waxa weeyaan caafimaadka ku jira maanta dadkeena waxa weeye halka xanuunadu la marayaan in Hindiya la tago in la tago Ethiopia iyo meelo kale waxa sababasa waxa weeye tayada xagga haday noqoto raashinka la soo dejiyo ama haday noqoto dawooyinkaasi la isku qarinayo ee dhacay fariinta دكتورك runtii halka soo mariyay aad iyo aad bay u muhiim tahay waayo waxa weeye ilaahay baa yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dadka ehlo cilmiga shay walba idii cilmi la waxa weydiiya fariinta dhaqaatiirta in wada qaadano dhamaanteen shacab iyo magaranaysa cid walba waxa weeye dawladdu waa shacabka marka waxa weeye shacabku inuu isagu boolis ahaado inuu ilaaliye ahaado ayaa inuu ciidan ahaado isaguna soo foojignaado sidoo kalena isticmaalo gacmo biyaha la gadirgaabay Soomaalidu tiraahdaa shacabku inay wax beertaan oo dhulkooga aaminaan iyadana caafimaadkooda ku jira warbixintaasi koobana doctor aad baad mahadsan tahay halka ku yeelan